Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Wiilkani wuxuu yidhi waxaan ahay 28 jir. Waan guursaday sanad kadibna waxaan noqday aabe. Galabgalbaha ka mid ah waxaa ii yeedhay xaaskayga. Waxay igu tiri I love you more than anyone. Laakiin waxaa jirta marwe iga daran oo aad ku jecel. Fadlan u tag marwadaas. La soo qaado waqti uuna qaad hadiyad aad qaali u ah. U wad banaanka oo casho ka soo sii hoteelkii aan ku wada cashayn jirnay ee cunnada macaana. Waan yaabay. Waan weydiiyey marwada meesha ay joogto anigoo fajacsan. Waxay ii qortay ciwaanka guriga. Markaan arkay waan yaabay ciwaanka guriga. Maba ahayn mid kale ee waa guriga ay ku nooshahay marwada adduunka ugu qaalisan ee hooyo macaan. Waxaan noqday laciif. Waxaan noqday qof aan garan mudnaanta ay marwadan hooyaygu lahayd. Waxaan dhunkaday madaxa xaaskayga. Galabtii Jimcaha ayaan ka soo rawaxay shaqada. Waxaan toos u soo aaday gurigii hooyo. Waxaana la qaatay waqti. Cabaar kadib waxaan ku marti qaaday casho u soo qaaday magaalada. Waxaan soo maray mool aad u qurux badan. Waxaan ka dalbaday inay ka qaadato wixii ay isheedu qabato. Dalxiis dheer kadib waxaan ku soo noqonay gurigii. Waxaanu qaadanay waqti intii ka badan. Waxaan runtii wadaagnay xusuuso hore iyo waxyaabo aanan isu sheegi jirin. Waxaan dareemay inay noloshu wehel la'aan waxba ahayn. Qosol, farxad, sheeko iyo damaashaad badan kadib, hooyo waxay igu ballan qaaday in next time-ka dambe ay marti qaadayso isla maqaayadii iyo moolkii aan ku marti qaaday. Waxaan ku yidhi diyaar, soona maca salaameeye. Galabtii Axadda waxaan imid gurigaygii oo ay joogaan wiilkayga iyo xaaskayga. Xaaskayga ayaa igu tiri, raxmadda ka muuqata wejigaaga waxaan ka akhrisan karaa dalxiiskii gaabnaa ee aad marwadii qaaliga ahayd ee hooyaa la soo qaadatay. Isku day inaad joogtayso qaali. Dalxiiskan si aad u faraxsanaato mar walba. Runtii waan qaboobay oo raxmad ayaa isaaqday. Waxaan sugayay kulanka dambe ee aan hooyo kula kulmi doono. Taana waxa uu qorshahaygu yahay inaan ka codsado in hooyo guriga igula noolaato. 2 maalin kadib, hooyo ayaa xanuunsatay. Waxaan la galay hospitaal. 32 hours ayaan gacanteyda ku dheganaa. 32 saacadood ayaan gacanteyda ku dheganaa. Marun inay kacdo ayaan sugayay. Waxaa ii yimid doctorkii iguna yidhi hadal aanan filayn. Samir iyo iimaan. Allah kaa siiyo. 1 bil kadib, aniga iyo xaaskayga ayaan nimid hoteelkii aan hooyo ku marti qaaday hadda ka hor. Waxaan galay xusuus, kadibna ilmeeyay. Cashadii kadib waxaan u istaagay inaan lacagta cashada bixiyo. Waxaa ii yeedhay mulkiilihii meesha. Iguna yidhi biilka cashada hore ayaa loo bixiyey. Warqadanna adiga ayaa lagu reebay. Aniga oo yaaban ayaan warqadii soo qaatay. Waxaan tusay xaaskayga. Waan wada akhrinay. Misena ilmeynay weliba si xad dhaaf ah. Warqadda sidan ayaa ku qornayd. Wiilkaygiiyo waxaan ka baqayay in kulankeena dambe uu suuro geli waayo. Habeenkaan meeshani keentay waxay ii ahayd habeen aanan weligay arag. Cimrigayga oo dhan. Maalintaa ayaan ku ilaaway. Dareemayna inaan dhashay isla waqtiga. Waxaan filayaa ballantii inaan ka soo baxay martiqaadkii aan ballan qaaday qayb ka midana aan gutay. Wiilkaygiiyo farxad ku noolow. Xaaska wanaagsani waa midda ducada ku horseeday. Xaaskaaga wanaagji. Hooyo horumar wacan. Adiga iyo xaaskaaga hibe iyo horumar wacan ku noolaada. Waalidnimadu ma aha shay ka go'a qalbiga ubad kasta. Laga yaabaa waalidkaagu inay wax kasta oo aad jeceshahay inaysan kuu samayn karin, balse wax kasta oo awoodooda aysan kaa hakran. Ogow xaaska wanaagsani waxay ku horseedaa hoggaan wanaagsan. Allana waxaan ka baryayaa inuu haweenka inoo wanaajiyo. Aamiin ya Allah. Fadlan gaarsii walaalada muslimiinta, siina sheer garee, kuna soo taageeree, siina fidi si ay u gaadho message-kan iyo fariintani haweenka muslimaadka. Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu inoo wanaajiyo dumarka, waalidkeenana inuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala intii dhimatay u naxariisto, inta kale aynu haysano. Waxaan dardaaran yaroo gaaban kulley idin soo jeedinaya aad leeyahay waalidkiinu intay nool yihiin ka faa'iidaysta. Nabiguna sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi الجنة تحت أقدام أمهاتكم. جنة وحي مركز هوست الله. The paradise lies with of the mother. Just وحي مروة جنة هوست الله الواه هو يدا كور هاي
hooyadaa ka ducayso waalidkaaga dhammaan ka wada ducayso iyaga uu shaqe u khidmee waxaad ogaataa the life without the parent is a death without witness nolol bilaa waalidii waa dhimasho bilaa markhaati ah markaa waalidkiina ka warhaya jeclaada xiriiriya markasta waalidkiina qalbiga iyo niyaddaba ku haya salaamu calaykum